kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena koobaad waa barnaamijkii subaxnimo saakayna waa khamiis haddaba saakay barnaamijka qodobo aad muhiim u ah oo dhammaantood ah wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa iiraan oo ku hanjabtay inay daakum ka dhigi doonto xarunta nuclearka israa'iil ee la yidhaahdo dimona warweyn waaye iiraan waxay tiri haddaan wax yar nuclearkeena meelaha uu yaallo aad duqaynaysaan shucaac yar ka dareenno annaguna waxaan garaacaynaa nuclearkiina dadkao dhan sunha u dhinteen gobolka adinkeedii taallaa annaga haddii aan wax yar dareenno kiina waa nagtaa ka saaraynaa marka su-aalaa la isweydiiyey ma garaaci karaan mise ma garaaci karaan maxay u garaaci waaye meel kastee dhegta ku hayaan dimona maa loo dahaa magaalooyinkii iyo dadkii o dhan sidii gazo ay u burburiyeen oo kale loo burburinaya maalin walba jugtaa lagu hayaa ilaa ay yidhaahdeen gantaalaheeni waa daaleen kulaha gantaalihii aan wax ku difaacayn waa daaleen nasiinay u baahanyihin weligii baark bini aadan yaa gantaalka waa bini aadana waa yaabaysaa nimankaa waxay sheegayaan haddaba marka aan idin tuso aljaziira oo saakay warbixin xasaasiya ka qortay sheekada waxay leedahay mas-uul sare oo ka tirsan militariga iiraan ayaa wacad ku maray in ay iiraan garaaci doonto goobaha nuclearka dimona ee israa'iil ay leedahay iyagoo markaa u isticmaali doono weliba sawaariikh culus oo halis badan inay ku garaaci doonaan wariyaha telefishinka aljaziira ee kasoo waramaya dagaalka ka socda tahraan caasimada iiraan ninka la yidhaahdo cumar hawaash ayaa soo xaqiijiyey in mas-uuliyiin iiraaniyiin ah ay ku hanjabeen in ay markaa samayn doonaan weerar ay ku qaadi doonaan goobaha nuclearka israa'iil ee la yidhaahdo dimona oo ku yaala saxaraha naqab la yidhaahdo haddaba maraykanka iyo israa'iil ayaa ka walwalsan khasaaraha arrinkaa ka dhalan doona haddii waxay ku hanjabtay iiraan goobaheeda nuclearka ah ay dhibaato soo gaarto dadkeeduna ay ku sumoobaan in gobolka oo dhan sun loo wada dhiban doono warkaasti meeluu yaallaa qaniya kaa fujisama maqli jirin sheekadii waad iiraan waxay leedahay nuclearka annaga aan haysano iyo haddii baalkan jugta laga badiyo wuxuu sii daynaa shucaacoo sii daynaya shucaacaas waa sun hawaduu galayaa hawada markuu galana dhibaatuu abuurayaa bini aadamka inay ku dhintaan inay cudurro ku dhacaan waxaasuu sababayaa sooma waxay yidhahdeen marka keligeenna sun ma u dhimanayna ogaada dimona waa ku daaya isagana marka qofaan mafaacil nawowi haysanin oo meel nuclear iyo kayd iyo uranium haysanin miyaa jira israa'iil waa haysataa annaguna waa haysanaa keena haddii la burburiyo oo dadkeenu sumoobaan waa laysla sumoobaydhe wax laysu naxariisanaa meeshaa ma jiray ku leeyihin marka warkaasuu war culus waaye isaguna wuxuu ka mid ahaa wararkii ugu dambeeyey tan iyo markii aynu kala maqneen soo dhacay xalay marka waxaa dhacay mooshinaa la waday maalmahan waa idiin sheegay oo aqalka baarlamanka maraykanka mooshinka marka wuxuu ahaa in la xadido gebgebta trump ciddaan iska weerar tan iska duqe in gacmaha la qabto ninkan uu tallaabooyinka waaweyn uu qaadayo baarlamanka inuu u ogolaado maahana uusan keligiis qaadin dadaan dhahay ninkaan waaba wareersan yahay dheh ninkaan maanta maalinta dambe dagaal kaloo qoorta noo gelin doonaa dheh ninkaan haddaan hadda gacmaha ka qaban isagoo sanad iyo bar joogo meeshaan halkaan kubood joogaay 4 sano baa sugi karnaa dheh ninkaan shiina iyo ruushya marka dambe afka noo gelin doona markaas adduunka oo dhan nuclear wifi la arki doona marka mooshinkaasaa la keenay majlisu shuyuukha la yidhahda aqalka odayaasha sanadkaa la keenay haye maxaa dhacay kooxdii marka mooshinka wadatay dhowr codaa looga adkaaday trump tiimkiisa adkaaday macnaha fidnada iska rabaan maraykankan waa kaa yaabinayaan waxayba iska rabaan ninkan qarbudaadiisa iyo jugta uu meel kastuu hayo dagaal kastuu galayay bay ku haystaan mafahmi nimankii marka hawsha waday wax yaraa looga qaaday marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyey xalay arrinkaas ayaa ka dhacay baarlamanka haddaba aqalka sanadka maraykanka ee baarlamanka ayaa diiday
in maaragtay xayiraad lagu sameeyo awoodaha Trump ee dagaalka. haddaba kuwii Trump taageerayay waxay keensadeen 53 cod ay keensadeen, halka kuwii Trump in la xadido oo gacmaha la qabto iyagana rabay ay la yimaadeen 47. marka 53 iyo 47 lagu kala adkaaday. Trump kooxiisa adkaatay 6 cod ay ku adkaadeen. marka hawshaas Trump waxa leeyahay way sii dhiirigelinaysaa oo hadda lugta furan wuxuu rabo iska sameeyaa. marka ayaga u taala Mareykan beelu kala dhacaba ayaga u taala qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. qodob kale oo aad u xiiso badan baa saaka Al Jazeera qortay oo isaguna aad muhiim u ah. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waa hay-adda wararka weyn Israa'iil ayaa waxay heshay xog ku saabsan inay gantaalaha Iiraan halis badan yihiin difaaca cirka. inkastoo warbaahinta reer galbeedka arkay kuwa Mareykanka iyo kuwan waxay qorayaan Iiraan waa tabar beeshay, Iiraan gantaalihii meelihii ay ka soo ridaysay meeshan propaganda horta la isku baabiina, laakiin iyagii haddana istoo ka shifay. saaka maxay leeyihiin waxa dirqi ku badbaaday xalay diyaarad Israa'iil ay leedahay. oo marka waxay leeyihiin Israa'iiliintii oo aaway haddii aan ka adkaanay difaacooda cirka baabi'inay maxay yihiin marka difaacan cirka. sheeko marka marka waxyaabaha qaar waxyaabo wada wiifaya jira warar oo iska socda nin walba ninka kale iska dhici lagu hayaa, laakiin xogta muhiimka ah marka ay qoladan wax laga sheegay islaamiyadoodu ay ka hadlaan xogtaas marka waa sax. haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu soo xiganayaa hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ee hay-adda weyn wuxuu leeyahay hay-addu waxay tiriyo leeyahay Al Jazeera leedahay Iiraan waxay adeegsatay gantaal dhulka laga ganay oo hawada loo ganay. diyaarad dagaal oo Israa'iil ay leedahay ayaa lagu ganay. duuliyihii wuxuu sheegay inuu ka badbaaday dhaawac inuu ka badbaaday. diyaaradii xagee ku dambeysay marka faafaahin ma laga duuliyihii wuxuu yiri dhaawacan ka badbaaday. goorba diyaaradii waa dhacdaa u balaynaa wuxuu baarshuudkii ku booday. marka waxay leeyihiin wuxuu ka badbaaday dhaawac. marka dhaawacaas waxa leeyahay ma diyaaradda dhaawac asaga mu iska wadaa ma diyaaraddu ka wadaa lama yaqaan, laakiin warka waxa soo tabinaysa Israa'iil hay-adeeda wararka u qaabilsan ayaa soo tabinaysa. qodobka isaguna wararka cusub ku jira fayl noo geliye meesha caadi ma aha. waxaa noo dhiman waliba 10kii subaxnimo ee ciidanka ilaalada kacaanka iyo kii Xisbullah waa noo dhiman yihiin. haddaba ma war kale galayna haddana cusub islaamiyadii Israa'iil waxay leeyihiin warniyo wax kala jireen dheheen gantaalaha ku hortagay waa daaleen iyo sheekadan wax ka daranaaba yimideen. haye indaar digniintii maba jirtaba. xalay Xisbullah waxay nagu soo garaaceen dheheen 8 gantaal. haye awal markii gantaaluhu soo baxaan Siiriga yeeri jiray war iska jira dadkii waa kala carrar jiray Soomaa jugta le ka war helnay dheh. war maxaa dhacay tacdiila ku dhacay kuwi Siirigi soo yeeray maalinki lixaad la bara Siirigi soo yeeray waaba iska ciladoobay ma madfaca ku dhacay ma daroora cuskatay laba yaqaan. marka sida ay wax u dhaceen markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay sawaariiqda Lubnaan laga soo tuuray xalay waxba digniin iyadoon la bixinin ayay soo dhaceen. waliba waxaa sheegay leedahay Al Jazeera kanaalka 12 Israa'iiliyiinta ay leeyihiin telefishinkooda 12 ayaa xogtan sii daayay. wuxuu sheegay 8 gantaal in laga soo riday Lubnaan markaa kadibna aysan wax digniina ka soo hormarin. dawladii Israa'iil alaabteedii waa daal meeshaad bogtahay jugtaa la isku hayaa wax la isku dhaxaa male. hal daqiiqad la isma cafinayo maray daroon hawada Israa'iil ku jirto mar gantaal ku jiro alaabta intaas ma loogu talagalay way daalayaan.
marka waa daaleen dheer qosolka iga dhabaada marka bugtay marka hadda waxa leeyahay gantaalihii daalay waxaba ka daran wiishkii yeeray xataa waa daaleen hawadu ka baxay waxba ma sheegin xalay 8 dalag waa gash xagee ku dhacay yaa yaqaan ma sheegayaan jugtoodu waa qarsanayaan laakiin waxay ku sheegayaan way ku iftiininayaan xalay 8 gantaal digniin ma jirin dheen waa xaroodeen haddee xagee aadeen marka haddee xaroodeen meeshaan baalka waa cabiraya meela loogu talagalay in lagu dhufto marka qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa waxaa ka hormaraynaa marka saakay xarasu thawri alina ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan horta intaynaan shirka jaraa'id ay qabanin waxaa saakay soo baxay war sheegaya xarasu thawriga Iiraan ayaga la wareegayba wadanka ayaga haysta si aan toos ahayn ay u haystaanba waxa qoray saakay warkan wargeysida qaarkood oo maartay uu kamid yahay wargeyska ingiriiska ka soo baxa ee la yiraahdo sharq baalki al-Quds ayaa la yiraahdaa oo warbixino muhiim ah soo helay hadaba marka hadaa idin tuso waxa leeyahay warbixino laga helay Iiraan waxay sheegayaan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay la wareegeen zimaam al-umur waxa la yiraahdaa awoodii wadanka inta dagaalka lagu jiro ayaga awoodda iskale nimanka oo suuxii aan riboorkooda sugayno wadanka ayagaaba haystaba waa loo fasax nin kasta sarkaal kasta asaga xukumaa leeyahay wadanka waana niman kacaanka islaamiga daacad waa nimankaas markii horeaba askarnimada lagu xulaa inay xarooyaal diimeed shiica ay ka soo baxeen oo masaajidooda iyo meelahooda ka soo baxaan lagu xulaa nimanka madaxda waa xataa niman wadaadadooda waay marka nimanka marka iyaga maamulaa la leeyahay marka saasoo important ugu yahay Al Jazeera anagana aan idinku soo gudbinaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan wax ka daba hadli kara male meeshii rabaan jugta ka gelinayaan hadaba saakay marka warkii subaxnimo ayaan galaynaa oo Al Jazeera ay soo koobayso shirkoodii jaraa'id ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan hadaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay bayaankii saakay ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxa ugu muhiimsanaa 4 qodob ugu muhiimsaneed ee leedahay qodobka koobaad waxay sheegeen inay garaaceen xalay wasaaradda gaashaandhigga sahnuniyadda iyo eraboorka Tel Aviv ku yaala ee yiraahdo Ben Gurion iyagoo isticmaalay sawaariikhda codkooda ka dheereeya iyo diyaarado daroon ah qodobka labaad ee saakay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay ka hadleen waxay ahayd inay burburiyeen 7 raadaar oo gantaalaha difaaca ah waxaana ay sheegeen in hadda indhaha la tiray Mareykanka iyo Israa'iil ku sugan gobolka macnaha wixii wax u sheegi lahaa indhaha la tiray leeyahay waa la baabi'iyay gantaalihii raadaaradii sheegi lahaa gantaalka qodobka saddexaad ee saakay ay ka hadleen oo ay qabteen saacadii la soo dhaafay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay leeyihiin weeraradeena cadawga waxa ay noqon doonaan kuwa ka culus kuwa hadda aan sameeyno maalmaha soo socda gudahood macnaha qodobkan saddexaad waxay leeyihiin waa si adkeyn doona weerar kuwan ka culus sameeynayna midda afaraad ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen in marka goobaha xoogga ay ku haysato Israa'iil ay markaasi ka jiraan qaylada iyo dhawaqa mar walba gantaalaha marka ridno cabaadkooda baxaya sawaariiqdeena aanu ku argoosanayno cadawga kaga argoosanayno marka meesha mar walba buuqa ka jira qayla ka jirta sawaxana ka jira iska jira ay lagu hayaa marka warbixinadaas marka saakay shirkooda jaraa'id 4 qodob ayaa marka ugu muhiimsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo meelo muhiim ah inay xalay jugta ka geliyeen iyo maartay soo qodobadii kale ayay ka hadleen iyo inay maalmaha soo socda si fiican u garaaci doonaan raadaaradii ay ka baabi'iyeen gantaalihii oo marka droniska iyo gantaalaha Iiraan ayba iska xaroonayaan oo marka ay galayaan waaya marka arinku markuu halka maraayo ayaa marka waxa jira iyaguna saakay 10 kale oo Xisbullah iyaduna waxay qabatay waa inay soo bandhigtaa waa idin sheegay laakiin saakay ilaa xalay nimankii Iraaqiyiinta ah wax wara oo ay qabteen ma jirin oo macnaha wararkooda ma hayno Al Jazeera soo ma gudbinin laakiin Xisbullah iyaduna saakay
saddex warbixinood ayay shirkooda jaraa'id kaga hadleen. haddaba marka aan u gudubno xisbullah waxay iyaguna saaki shirkooda jaraa'id ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen diyaarado iyagoo isticmaalaya diyaarado daroon ah goob warshad militarigu ay leeyihiin oo ku taala deegaanka la yiraahdo Backa. haddaba waxay sheegeen in warshadahaasi ay iska lahayd shirkadda hubka samaysa Israa'iil ee Rafael shirkadda la yiraahdo waa shirkadda gantaalahan difaaca iyo waxaas iyo samaysa goobtooda ayaanu weerarnay yiraahdeen. xisbullah waxay sidoo kale sheegeen saacadihii la soo dhaafay shaqadii ay qabteen inay ku jirtay duqayn ay duqeeyeen saldhigga la yiraahdo Tal Hashomir oo ku yaala koonfur bari Tel Aviv. haddaba waxay sidoo kale ay weerar ku qaadeen meel kale oo muhiim ah oo ku taalay Haifa iyagoo isticmaalay sawaariiq nooc khatar ah ayaanu ku garaacneen dheheen. warka saddexaad ee xisbullah warkoodii ku jiray saakay muhiimka ahaa oo Al Jazeera ay noo soo koobayso waxay leeyihiin cadawga waxaa lagu qasbay waa Israa'iiliyiinta inay ka baxaan oo ay hubkooda kala cararaan iyo taangiyadooda. kadib maxay ula cararayaan waxay ka carareen deegaanka la yiraahdo Talatul Hamamis oo ku dhaala xuduudka Lubnaan Israa'iil u dhaxaya. waxayna u carareen kadib markii ay isfarasaareen dagaalyahankooda xisbullah ay isku farasaareen halkaas. waa naga carareen yiraahdeen. waa tii shalay taangiye laga gubay xalay aan ogeyn wararkii ugu dambeeyay in dagaal ku socday. hadda saaki waxay leeyihiin way carareen way ka carareen meeshii buurteed ay saarnaayeen waa laga ayrsaday saasay leeyihiin. marka wararkaasu Al Jazeera noo soo ururisa xilli kasta anna waan idin la wadaagaa. waa wararka awlaada iyo Iiraan ay soo tabiyaan. saaki waxa soo kala jiray isaguna war uu soo saaray afhayeenka ciidanka Israa'iil. isaguna wuxuu sheegay inay dagaalka guulo ka gaareen oo ay burburiyeen gantaalaha Iiraan meelihii laga soo ridayay. maartay hawlahaasaan qabanay haddana waxaynu beegsan doonaa oo yiri goobaha masaanicda ama warshadaha ayaynu weerari doonaa u dhahay. macnaha waa warshadoodii Rafael shirkadda le gantaalaha samaysa warshadii la duqeysoba iyaguna waxay leeyihiin warshadahaas duqeynayaan kan. marka iyaguna shirka jaraa'id ay qabteen. haddaba wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay intii aynu kala maqnay.